Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa maxaa la dhahaa cunto ilmaha ku cayilaan difaaca jirkooda adkeyso qarashkeedana aan badnayn fudud aan maanta ka hadli doonaa marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysatiin cuntada maanta aan ka hadlayno waxaa waaye waa hal cunto wax isku keenkeen ma ahan waxaana waaye digirta marka waxaan ku soo koobi doonaa afar qaybood oo ku soo koobi doonaa tan koowaad tahay nafaqooyinka laga helo maxaa la dhahaa nafaqooyinka laga helo fuulka ama digirta faa'iidooyinka ay u leedahay ilmaha naasnuugaha iyo ilmaha kale oo caadiga ahba iyo meeqa jir cunuga ugu bilaabin karta inay siisid digirta iyo sida uga faa'iideysan kara cunuga nafaqada ku jirta digirta afartaas qodob aan ku soo koobi doonaa ka hadalka marka soo dhawaada kan koowaad oo ah nafaqooyinka laga helo digirta maxay tahay horta digirta waxaa laga helaa borotiinka dhirta laga helaa borotiinka qaarna waxaa laga helaa hilibka qaarna waxaa laga helaa dhirta marka digirta waxaa laga helaa borotiinada dhirta sida hadii hilibka oo kale uu qaali yahay maxaa la dhahaa aadan u soo gadi karin aadan u awoodin oo kale ilmihii borotiinkooda maxaa la jirkooda u baahan yahay korashada qayb kamid ah waa borotiinka sida maxaa la dhahaa korashaha ilmaha murqaha ilmaha borotiinada qayb libaax la ka qaataan marka maxaa la dhahaa hadii hilibka oo kale qofka uusan awoodin oo kale wuxuu u soo gadi karaa digirtan oo borotiinada dhirta laga helo waxaa ku jirta vitamin E ku jiro oo maxaa la dhahaa ilmaha jirkooda u baahan yihiin vitamin A laga helaa macdano badan laga helaa jirkan waxay ka saartaa sunta marka qodobka koowaad oo ah nafaqooyinka laga helo waa intaas in borotiinada dhirta laga helo vitamin badan laga helo vitamin E uu kamid yahay macdano badan laga helaa sunta jirka ka saartaa qaybta labaad oo ah maxaa la dhahaa faa'iidooyinka ay u leedahay ilmaha naasnuuga ah iyo ilmaha kaleba marka faa'iidooyin badan ay u leedahay oo waxaa kamid ah maxaa la dhahaa faa'iidooyinka u leedahay maxaa la dhahaa korashaha murqaha ilmaha ka qayb qaadata korashooda caadiga ah ka qayb qaadata borotiinkana wuxuu qayb libaax la ka qaataa korashaha ilmaha wax ugu badan oo jirka maxaa la ilmaha korashooda ka qayb qaata waa borotiinada marka murqaha iyo korashooda caadiga ah ay qayb ka qaadataa meeqa jir ugu bilaabi kartaa marka inay siisid digirta ilmaha waxa ugu bilaabi kartaa cunuga markuu 6 bil soo gaaro wuu u bilaabi kartaa hadii familka uusan qabin maxaa la dhahaa history ah in maxaa la dhahaa digirta ay ku qaban xasaasiyad hadii familka oo dhanka siiba hooyada hadii xasaasiyad ay ku qabto digirta ilmaha hore laga ma siin karo waa in dhakhtar la geeyaa laga baaraa in cunuga asagan uu hooyada ka dhaxlay inta badan waxay u badan tahay in ilmaha hooyada ay ka dhaxlaan xasaasiyad laga qada digirta marka hadii hooyada xasaasiyad digir ay qabto kale cunuga kuma fududaa karta inay siiso ilaa in laga baar in asagan uu qabo haduu qabano maxaa la dhahaa in xalka loo raadiyo naqane marka cunuga 6 bil markuu jiro waa u bilaabi kartaa laakiin ilmaha 6 bil markay jiraan digirta maadaama qolof ay leedahay waxa uu sameyn kartaa waxa u karina si fiican u karina ilaa si fiican u kala dhacdo kadib waxa sameeynaa waa shiide markaas qolofkeeda ayada way isku tirmayaan waa siin kartaa markaas ilmaha 6 bil markay jiraan oo fiican in lagu bilaabo marka sidee uu faa'iideysan kartaa in maxaa la dhahaa ilmihii nafaqada ku jirta digirta si uu faa'iideysan karaan waxa uu faa'iideysan karaa horta digirta borotiinka marka laga soo tago fitamiinada macdanta ku jirto waxa ku jirto maxaa la dhahaa digirta maado loo yaqaan xadiid bira ku jiro marka birta ku jirto way yar tahay digirta laakiin si ilmaha ay ugu faa'iideysan karaan oo jirkooda markuu digirta aasisid oo jirkiisa uu birta ugu nuugi karo waxa loogu daraa liin yar ugu dhijinay marka badinaysid wax yar oo meel dheer ugu shubay ugu daray marka digirta siinaysid marka liintan vitamin C waa laga helaa oo ilmaha difaaca jirkooda way adkeysaa waxay kale ilmaha ugu fududeynay digirta oo cuna birta ku jirta in jirka uu ka faa'iideysto hadii liinta aan ugu darin waxa laga yaabaa in borotiinadu wixii xoog badnaa digirta ku jiro inuu ka faa'iideysto laakiin birta uusan wax saas ka qaadan marka hadii liin yar ugu dartid cunuga maxaa la dhahaa wuxuu ka helaa birti jirkiisa u fududaanay inuu nuugo waxa kale oo ilmaha marka la siinayo loogu daraa maxaa la dhahaa saliid saytuunka maxaa la dhahaa wuxuu qayb libaax la ka qaataa korashaha maskaxda ilmaha marka hadii digirtii iyo maxaa la dhahaa saliid saytuunki wax yar oo liimaha isugu dartid ilmihiisaas ku siisid ما شاء الله برتين سيف عن النوجا محلها سيتون كورنشاه مسكحة ilmaha u fiican tahay kana waa borotiinay fitamiina ku jira maxallaha bira ku jirto oo cunuga niig la'aan anemia ma ka dhacayso kala hadii maxallaha digirta si fiican ugu roonaatid ilmihi miisaankooda uu siyaada difaaca jirkooda way adkeysaa marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen muuqaalkan aadan u soo koobay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen soo dhawaada hadii familka kamid tahayna like share noo saar hadii aad cusub tahayna subscribe noo saar soo dhawaaw siina share garay like noo saar si dad badan ay u faa'iideystaan muuqaalkan waa mahadsantihiin